kusoo dhawo Fan Academy haddaad nagu cusubtaa fadlan subscribe leh kadibna furo gambaleelka si muuqaal kasta aynu soo gelino kugu soo dhaco isla marka aynu soo gelino. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Ma jeclaan lahayd inaad ku barato luqadda Englishka si online ah adigoo gurigaaga ama goobtaada shaqo jooga? Haddii ay tahay jawaabtaadu haa, Akademiyadda Fahan waxay idiin diyaarisay koorso dhammaystiran oo luqadda Englishka ah. Koorsadan waxay ka kooban tahay 3 level ama 3 heer. Heerka koowaad waa Basic English ee ugu talagalnay ardayda bilowga ah looga bilaabi doono ABC-da ilaa iyo meel fiican laga gaarsiiyo ardayga. Waa buug ka kooban 62 casharo video ah iyo buug PDF oo qoraal ah. Sidoo kale waxaynu idiin diyaarinay Spoken English oo ah heerka labaad. Spoken Englishka waxaynu ugu talagalnay ardayda heerka dhexe ama heerka sare ah. Waa buug ka kooban 102 casharo video ah iyo buug PDF ah. Buuggan waxaad ku baranaysaa ku hadalka luqadda Englishka. Marxalad kasta aad ku sugan tahay wixii aad ku hadli lahayd ayaad ku baranaysaa. Sidoo kale waxaan idiin diyaarinay naxwaha guud ama General English Grammar oo aad ku baran doontid naxwaha luqadda Englishka oo dhammaystiran. Haddii aad danaynaysid inaad ka diiwaangeliso koorskan online-ka ah, fadlan la xiriir WhatsApp number-ka shaashada kaaga muuqdo si lagu siiyo macluumaad dheeraad ah iyo casharo tusaale ahba. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Halkani waa Fahan Academy. Magacaygu waa Axmed Cabdiqaadir Xuseen. Cashirkan ciwaankiisu waa Vocabulary Part 12. Waxaynu ku jirnay barashada ereyada. Waxaynu maraynaa qaybtii labaad ee C. Cashirkan waxa weeye cashirka ugu dambeeyay ee qaybta C. Waxaynu u gudbi doonaa D hadduu Ilaahay ka raali noqdo ee ka bogasho wacan. Crew. Crew, noun, a group of people working together. Crew waa noun magac. And crew means a group of people working together. Waa koox dad ah oo wada shaqaynayo. Marka crew waxaa la shaqaale. Shaqaale weeyaan. Waxaa loo isticmaalaa shaqaalaha ka shaqeeyo maraakiibta oo kale iyo wixii la mid ah. Crime, noun, an act that violates a law. Crime waa noun. Crime means an act that violates a law. Marka crime waxa weeyaan dembi. An act waa ficil that violates carqaladeynayo a law sharciga. Marka crime waa dembi. Criminal, noun, a person who is responsible for a crime. And criminal waa magac. Marka criminal macnaheedu waxa weeyaan a person who is responsible for a crime oo qofka mas'uulka ka ah dembiga. Marka criminal waxay noqonaysaa dembiile. Criticize, verb, to say what's wrong with something or someone, to condemn, to judge. Criticize waa verb, waa fal ama ficil. Criticize macnaheedu waxa weeyaan to say what's wrong with something or someone. In wax laga yiraahdo wax ka qaldan qof ama shay. Marka waa dhaleecayn, to condemn, dhaleecayn, to judge ama in la xukmiyo. Criticize macnaheedu guud waxa weeyaan dhaleecayn ama eedeyn, cambaarayn. Crisis, noun, a time of great disagreement, confusion, or suffering. Crisis waa noun. Crisis marka waxaa la yiraahdaa a time of great disagreement. Waa waqti uu jiro isfahan waa aad u weyn. Confusion, jahwareer, suffering ama dhibaato. Crisis marka waxaa markay jiraan dhibaatooyinka sida isfahan waaga xagga siyaasadda, jahwareerka, dhibaatada kale ee jirto. Hal crisis. Crops, noun, plants that are grown and gathered for food, such as grains, fruits, and vegetables. Crops waa dalaga. Waxa weeyaan plants that are grown, dhirta la beero, and gathered for food, laisku keeno in loo isticmaalo cunno, such as grains, sida iniinta, seedska, qamadiga, bariiska, wixii la midka ah. Fruits, miraha,
sida cambaha, babayga, wax la midka ah, and vegetables iyo khudaarta caadiga ah. Cross, verb, to go from one side to another, to go across. Cross marka verb weeyaan, waa ka gudbid, in meel laga gudbo oo meel kale la tago. Crowd, noun, a large number of people gathered in one place. Crowd waxaa yidhahdaa dadka hal meel isugu imaado, waa buux oo markii dad badan ay hal meel isugu imaadaan ayaa crowd. Crush, verb, to damage or destroy by great weight, to defeat completely. Crush waa burburin, to damage or destroy, in wax la yeeleeyo la burburiyo weliba si aad u culus. To defeat completely, in laga takluso gebi ahaanba. Cry, verb, to express or show sorrow or pain. Cry waa ficil, waa qofka inuu muujiyo murugo ama xanuun. Marka cry waa ooyid, qofka inuu ooyo. Culture, noun, all the beliefs, traditions and arts of a group or population. Culture, noun weeyaan, all the beliefs, dhammaan dadka waxay aaminsan yahaan beliefs, waa dhaqanka ama caadada. Traditions, caadooyinka, and arts iyo farshaxanka of group or population. Marka culture waa dhaqanka, bulsho waxay aaminsan yihiin oo dhaqan u ah ayaa la yidhahdaa culture. Cure, verb, to improve health, to make well. The doctor can cure the disease. Noun, something that makes a sick person well. Antibiotics are a cure for infection. Cure mar waxay noqotaa verb oo ah daaweyn. The doctor can cure the disease. Dhakhtarka wuxuu daaweyn karaa cudurka, marka waa ficil. Noun markay tahay waxaa something that makes a sick person well. Waa shay caafimaad siin kara qofka. Tusaale, antibiotics are a cure for infection. Antibiotiga waxay daawo u yihiin infectionka. Curfew, noun, an order to people to stay off the streets or to close their business. Curfew wuxuu noqonayaa bandow. Curfew, noun, waa amar ah dadka inay joogaan guryahooda, ay ka fogaadaan wadooyinka, sidoo kale ay xiraan ama ay xiraan ay yidhaahdeen ganacsigooda. Marka curfew waa bandow. Current, noun, movement of air, water or electricity belonging to a present time. Currenty markay noun-ka tahay waxaa weeye qulqulka sida hawada, biyaha, electricity-ga wixii la midka ah. Mar waxay noqotaa waqti xaadirkan, adjective ahaan waa present time, wax hadda taagan oo waaqic ah. Custom, noun, a long established belief or activity of people. Custom waa caadada dadka ay leeyihiin, wax soo jireen ah, long established belief, wax dadka in badan ay soo aaminsanaayeen, ay rumaysnaayeen, or activity of people. Marka custom waa caadada dad ay leeyihiin, wax soo jireen oo muddo dheer ah ay dadkan aaminsan yihiin. Customs, noun, the place at a port, airport or border where travelers baggage are looked at to find out if any goods are being carried illegally. Customs waxaa customka sida airportyada, dekadaha waxay leeyihiin meel la yidhahdo custom oo lagu baaro dadka safrayo boorsooyinkooda si loo ogaado haddii ay wax sharci darro ah ay sidaan, alaab goods oo sharci darro inay sidaan, illegally ah, sharci darro. Custom waa kaa. Cut, verb, to divide or injure with a sharp tool, to make less, to reduce. Marka cut waa jarid, in shayga lagu jaro wax af leh ama shayga la yareeyo.
to make less, to reduce. Marka cut waxaa waa jarid. Halkaas waxaa nooga eg C. Insha Allah waxaynu geli doonaa D. Dhammaantiin waad mahadsantihiin. Videoga like saara, dad ku cusubta janaalka subscribe, sii share gareeya. Mahadsantihiin dhammaantiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.